Who's there? I heard you. Yaa halkaa jooga waan ku maqlay ayay tiri gabadhii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta. Haday tahay markii koowaad aad soo boqoto YouTube-kan, magacaygu waa Cabaas Jaamac Cali. Waxaan ahay macallin dhiga luqadda Ingiliishta. I am calling the police. Waxaan wacayaa booliska bay tiri gabadhii. Waxaan la hadlayaa booliska hadda ayay sheegaysaa. Why aren't you working? Why aren't you working? Maxaanad u shaqayn laadahay bay tiri. Shay bay gacanta ku haysaa u shaqayn waayey. Waxayna leedahay why aren't you working? Maxaanad u shaqaynayn? Can we mom bay tiri. Ma awoodna hooyo, ma awood. Depends if Chelsea wants to come with us. Hooyadii waxay ku jawaabtay cunugtii yareed markaa depends waxay ku xidhan tahay if Chelsea haddii ay Chelsea waa gabadhan ayaa la yidhahdaa markaa halkan taagan haddii Chelsea wants doonayso to come with us inay soo raacdo waxay ku xidhan tahay haddii Chelsea doonayso inay soo raacdo inaga markaa come with waa soo raacid. Can you come with me? May soo raaci kartaa. Come with us na soo raac. Markaa erey cusub waxa kugu jira come with waa raacid weeye. Wants to come with us. I really don't want to spend my Saturday listening to Hildy scream about some dumb kids movie. Chelsea gabadhii lagu sheegayna waxay tiri I really don't want to spend my Saturday listening to Hildy screaming about that dumb movie. Gabadhii waxay tiri I really dhab ahaantii aniguna don't want ma doonayo to spend inaan ku qaato my Saturday sabtidayda markaa Saturday waa dhawaaqa Britishka Saturday Americanada doonayso waxaad ka dhigi kartaa Saturday sararara baad ka dhigi kartaa Saturday laakiin Britishka ayaa labada inta badan meel walba laga isticmaalaa kaasaan xoogan marka waa inaad practice ku samaysaa British accent-kaaga ka dhigtaa Saturday taasna waa dropped oo laga tuurayaa meesha inaan dhegaysto bay tiri to Hildy screaming about some damn movies inaan dhegaysto Hildy oo yacnihii ku qaylinaysa filmaan maalayacni oo kala ereyga dam waa wax bullshit ah oo aan micno samaynayn marka Hildyna waa gabadha yar magaceedii. Did you even see the poster? Gabadhii Chelsea waxay tidhi Did you even see poster? Xataa miyadan arag miyaa posterka? Poster waa sawirka warqadda ah ee ku qoran yahay filimka magaciisii sawirkiisii waxaasoo dhan ay ku nashqadaysan yihiin ayaa wax loo yaqaan poster. Kaliya filimka qolo lama isticmaalo waxyaabo badan waa loo isticmaalaa poster waata aroos oo kale loo isticmaalo wedding poster oo kale iyo kuwo kale badanba. It looks horrible. iyadoo sii wadata hadalkii gabadhii Chelsea lagu sheegayay ayaa waxay tiri oo waxay u sheegaysaa markan posterku noocu u eg yahay bay u sheegaysaa waxayna tiri it looks horrible wuxuu u muuqdaa wax cabsi ah buu muuqdaa horrible or something that terrifying you wax ku cabsi geliya marka wuxuu u muuqdaa bay tiri sawirku mid ka cabsoonayso kale. I heard it was a cute movie. haddana wax hadalkii qaadatay oo hadashay maamadii amase hooyadii waxayna tiri I heard it waxaan maqlay anigu bay tiri it was a cute movie inuu ahaa filim qurux badan ayaan maqlay marka waa filimkan ay shaleemada kasoo daawanayaan ee ay ka hadlaysay posterkiisa gabadha horena ay lahayd waa cabsi ay ku sheegaysay. You can't judge a movie by the poster. maamadii waxay tiri haddana you can't judge a movie by the poster kuma xukumi kartid filimna maxay posterkiisa ama sawirkiisa hore ee lasoo dejiyo ee ay ku nashqadaysan yihiin maxay muuqaalkiisa guud iyo magaca filimka. sidoo kale waxaa jirta halkan aan ku sii daree mahmaah tiraahda don't judge a book by its cover ha ku xukumin buugna jaldigiisa oo laga wado buugga
gudihiisa adoon arag amase contentiskiisa ha odhanin buuggaasi wuu xun yahay ama wuu wanaagsan yahay, taasi oo loo isticmaalo micno intaa ka ballaadhan oo ah qof kasta ha ku xukumin isbarashadiina koobaad adigoon qofka dabeecadihiisa dhexgelin. aynu soo laabanno haddana muuqaalkiinu soo laabanno. Why not? That's the whole point of a poster. gabadhiina waxay tidhi why not oo maxaa diiday, that is the whole point of poster. taasi waxay tahay wuxuu kaba hadlayo boosterku keliya waxay tahay inuu qabtay waa inuu kuu sheego filimku siduu yahay iyo wuxuu ka hadli doono ay kule ka wadaa. haye sii soconno. Poster. I'm saying you shouldn't jump to conclusions. maamadii waxay tidhi I'm saying you shouldn't jump to conclusion. I am saying anigu waxaan leeyahay oo kuu sheegayaa you shouldn't jump inaanad ku boodin to conclusion gabagabada amase gunaanadka, oo ay ka wado yacnihii inaad markiiba soo afjarin oo odhan filimku waa sidaa iyo sidaa. hadda mayla socotaa. Conclusions based on how something looks on the outside. based on adoo ku saraynayaa how something sida uu shay looks on the outside uu uga muuqdo dushiisa, yacnihii shay siduu u egay dushiisa sare adoo ku saraynaya inaanad maxay conclusion amase gunaanad u samayn oo aanad odhan shaygan waa sidaa iyo sidaa adigoon shaygii gudagelin oo dushiisa sare uu eegaya, ayay maamadii ku tiri. qaybtii ku xigtay insha allah waan soo raacin doonaa sida ugu dhaqsaha badan. daawade keliya waxaan kaa rabaa subscribe, like, share. shaqadeedu aniga waxay tahay inaan sida ugu wanaagsan ugu macquulsan kuu baro luqadda Englishta, adiguna waa inaad wixii markaa meelaha bannaan oo dhan buuxisaa. nabaday. Outside.